Kumanaan muhaajiriin ah oo cagahooda maalaya kuna soo wajahan xuduudka koonfureed ee dalkan Mareykanka ayaa Jimcihii shalay isku dayay inay ka gudbaan xadka dalka Guatemala uu la leeyahay dalka Mexico. Ciidamada ilaalada xuduudaha ee dalka Mexico ayaa awoodi waayay inay muhaajiriintan tirada badan ku xakameeyaan dhinaca xadka Guatemala kadib markii ay dardareen teed ay ciidanka Mexico ku gadaameen marinka xadka. ciidamada ilaalada xuduudaha Mexico waxay sidoo kale isku dhaceen qaar badan oo kamid ah muhaajiriintan kuwaas oo isku dayayay in ay maraan buundo weyn oo ku taala xuduudka. ciidamada ayaa dadkan u adeegsaday qaaca dadka ka ilmeysiiya. ciidamada Mexico waxa kale oo ay dadkan kula hadleen codbaahiye iyaga oo u sheegay in aysan ka soo tallaabin buundada. qaarkood ayaa dib uga laabtay dalka Guatemala si ay u soo iibsadaan cunto iyo biyo. waxaa la arkayay qaar ka mid ah muhaajiriintan oo ka boodaya buundadani oo dul marta webiga Sujiate. kuwa biyaha isku tuuray ayaa waxa ay daba raaceen xarig dheer oo ay muhaajiriinta qaar sameeyeen oo ay uga gudbeen webiga. booliska iyo saraakiisha waaxda socdaalka ayaa u ogolaanayay dad tiro yar oo ogolaaday in ay si qaxootinimo ah ay isaga diiwaan geliyaan gudaha Mexico. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay inuu muhaajiriintan u adeegsan doono ciidamada militariga haddii ay isku dayaan inay ka soo tallaabaan xuduudka koonfureed ee Mareykanka.